khadka ku jira. Maxamed aan ku bilowno qodobada wararka ugu waaweyn. madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegaya inuu amar ku siiyay ciidamada badda inay toogtaan oo ay dilaan doon kasta oo miino dhigaysa badda Hormuz. intaa waxaa dheer buu yiri maraakiibta miinooyinka xaaqa ayaa hawl ka bilaabay hadda buu yiri marinka Hormuz. Trump ayaa ku qoray bartiisa bulshada Truth Social yiraahdo waxaanan amar ku bixinayaa buu yiri in hawlahaasi la sii wado lana saddex jibaaro. madaxweynaha Mareykanka weli ma uusan xaqiijin in maraakiibta Iiraan miinada dhigaysay marinka Hormuz in ay miino dhigayaan in kale, laakiin waxa uu sheegayaa in uu qaadanayo tillaabooyin ka hortag ah oo sidoo hadal ku dhigay. ku-xigeenka afhayeenka baarlamaanka waddanka Iiraan Hamid Reza Haji ayaa ku dhawaaqay in lacagtii ugu horeysay marinka Hormuz lagu maray ay soo gashay bangiga dhexe xisaabaadkiisa. ku-xigeenka afhayeenka baarlamaanka ayaa hoosta ka xariiqay in 20% saliidda caalamka ay marta marinka Hormuz, 35% gaaska dareeraha ah, sidoo kale inuu maro badan istiraatiijiga ah. wuxuuna ku nuxnuxsaday in gacan ku haynta marinka uu yahay door muhiim ah oo dhaqaalaha caalamka qayb ka ah. dhanka kale Ahmed Nadari oo xubinka baarlamaanka waddanka Iiraan ayaa xaqiijiyay in lacagtii ugu horeysay khidmadda ayada marinka Hormuz in lagu qaaday lacagta Iiraan ee riyaalka loo yaqaano. wuxuuna ku nuxnuxsaday in lacagahaasi khidmadda ah ay joogto noqon doonaan. militariga Israa'iil ayaa sheegay 45 sarkaal iyo askar isugu jira inay ku dhaawacmeen koonfurta Lubnaan 48 saac ee la soo dhaafay. bayaankan ayaa lagu sheegay in ciidamada ku dhintay ama ku dhaawacmay dagaalada intii ay dib u bilowdeen koonfurta Lubnaan in ay gaareen 735. kuwa dhaawaca kuwa dhimashadaana tiradooda lama cayimin. 44 ka mid ah xaaladooda inay khatar ku jirto. boqolkiiba cadad badan in ay qabaan dhaawacyo fudud. ururka Xisbullah ayaa iyagana dhankooda sheegay in dagaalyahanadooda ay bartilmaameedsadeen ciidamo Israa'iil oo isku soo urursanayay tuulada la yiraahdo Tayba ee ku taala koonfurta Lubnaan. ururka Xisbullah ayaa sidoo kale sheegay inay soo rideen diyaarad nooca droonka ah oo ay Israa'iil leedahay kuna soo rideen deegaanka Mashdal zone ku yaala koonfurta Lubnaan. 4 Falastiiniyiin ayaa la dilay, 5 kalena waa la dhaawacay weerar ay Israa'iil ku qaaday marinka Gaza iyada oo xadgudubyo joogto ah ka geysanaysa xabajoojintii la gaaray Oktoobartii 2025 sida ilaha caafimaadku ay sheegayaan. ilahaasi ayaa xaqiijiyay 3 qof in lagu dilay, 2 kalena lagu dhaawacay weerar diyaarad drone ay ku qaaday baabuur dad rayid ay lahaayeen oo marayay meesha laga soo galo xerada qaxootiga ee Magaazi ee Daarbalax ee bartamaha Gaza. hal Falastiini ah hal qof oo Falastiini ayaa geeriyooday, 3 kalena waa dhaawacmeen kadib markii diyaarad drone ay weerartay Al-Maslakh deegaanka la yiraahdo ee koonfurta Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza sida ilaha isbitaalka Nasser ay sheegayaan. ila maxaliyana waxay sheegayaan in Israa'iil madaxfeeda goobta ama artillery in ay ku duqeeyeen bariga Khan Yunis, halka militariga Israa'iil gaadiidkoodana ay xabado ku fureen qaybo ka mid ah bariga magaalada iyo xerada qaxootiga Al-Mawasi ee ku taala deegaanka waqooyiga galbeed ee Rafah. wax macluumaad oo dheeraad ah oo ka soo baxay dhaawacyada iyo dhimashada deegaankaasi ma jiro. wararka caalamkana waxaa ka mid ah 2 tareen oo magaalada banaankeeda socday ayaa isku dhacay magaalada Copenhagen ee dalka Denmark. waxaa ku dhaawacmay 17 qof oo 5 ka mid ah xaaladooda ay khatar tahay sida gurmadka degdega ay sheegayaan.
faahfaahin dheeraad oo hadda laga bixin karo ma jiro sababta dhaliyey shilkaasi sida ay booliisku sheegeen. saraakiisha ayaa sheegaya 4 ka mid a dadka dhaawacmay in xaaladooda ay khatar ku jirto. haddana waxaa muuqata baa leeyahay in darawaladii uu waday labadaasi tareen in ay ku jiraan dadka bukaanka ah. barnaamijkii wararka caawa intaan u gudbin falanqaynta aynu eegno war degdeg ah oo hadda soo dhacay. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Iiraan ayaa waxa uu sheegayaa in aysan qorsheynayn in ay dhistaan ama ay samaystaan bam nuclear ah, laakiin wuxuu leeyahay haddii aynu doonayn in sidaasi aan samayno waynu samayn doonaa. warkan waa war hadda soo dhacay. maxamed, aan ku bilowna falanqaynta warkan ka soo yeeraya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ku aadan in la beegsado doonyaha yaryar ee ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ay adeegsanayaan. arrintan waxay ka macno tahay inuu kaga hortago in aan la afduubin ama aan la qabsan maraakiibta gooshaysa marinka Hormuz oo Iiraan ilaa hadda labana ay qabsatay mid kalena ay weerartay sida wararka ugu dambeeyay ay sheegayaan. madaxweynaha Mareykanka wararkan ka soo baxaya iyo xaaladda ka jirta meedaanka iyo marinka Hormuz aad ayay u kala fog yihiin. Iiraan waxay sheeganaysaa in maraakiibta dhexdhexaadka ah ay marinkaas marayaan lacagihii ugu horeeyeen in akaankooda ay ku soo dhaceen. Mareykanka maraakiibtiisii loogu talagalay inay go'doomiyaan marinka Hormuz waxaa la leeyahay sababo iyo dagaal dhacay awadii ayaa laga fogeeyey meelahaasi sida uu sheegayo Professor Maxamed Marandi oo ka tirsan jaamacadda Tehran arrimaha Iiraan aad u lafagura Tehran ku nool. khabiir kale oo ayaa waxa uu leeyahay Iiraan waxaa laga yaabaa wada xaajoodada inay ku noqon karto oo keliya haddii dowladda Mareykanku ay go'doominta joojiso, Trumpna ay ka go'naato diblomaasiyadda sida uu hadalku u dhigayo nin lafagura arrimaha waddanka Iiraan. isagoo arrintaas ka hadlaya Ali Akbar Dirani oo ka tirsan xarunta istiraatiijiga ah ee Tehran ayaa ku gacan seeray Trump hadallada uu soo jeedinayo ee la xiriira in hoggaanka Iiraan uu khilaaf ka dhaxeeyo. arrintaas ayuu wuxuu ku sheegay inay tahay xisaab xumo iyo khiyaali. wax faraq oo afkaartooda ay ku kala duwan yihiin lama arko madaxda waddanka Iiraan. Iiraanna istiraatiijiyadeeda arrimaha dibadda waa ku midaysan yihiin. wuxuuna sheegayaa khabiirkaasi in Trump fariin laba dhanla ah in uu dirayo mid inay tahay dagaal nafshid ah ama psychological war waxa Soomaaliga lagu yiraahdo af Ingiriiska lagu yiraahdo. haddii go'doominta uu qaado waddanka Mareykanka, Trumpna ay ka go'naato diblomaasiyad sida kaliya ee wada xaajood uu ku furmi karo iyo khabiirkan leeyahay. wuxuuna ugu baaqayaa dowladda Mareykanka inay soo afjarto waxa uu ku tilmaamay burcad badeednimada ay ku qabsanayso maraakiibta waddanka Iiraan. waa gartay, waa yahay. waan ku soo laaban doonaa falanqaynta. aynu eegno war kale oo hadda soo dhacay. wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil ayaa goor dhaweeyay warbaahinta la hadlay, waxaana uu sheegayaa inay diyaar u yihiin inay dib u bilaabaan dagaalka Iiraan ka dhanka. wuxuu yiri diyaar ayaynu nahay marka ay timaado weerar iyo difaac labadaba. wuxuu yiri waxaynu ka sugaynaa Mareykanka fasax. waxaana markaas uu sheegayaa in Iiraan ay ku celinayaan xilligii casri jaahiliga ahaa haddii aysan fulin sida hadalka u dhigay shuruudaha Mareykanka. waa hagaag. maxay ka macno yihiin hanjabaadahan Mareykanka ka soo yeeraya iyo Israa'iil? Mareykanku wuxuu sii wadaa go'doomintii, hadduu u sii hanjabayaa doonyaha Iiraan ciidankooda isticmaalaan. wasiir gaashaandhigga Israa'iilna waynu maqlaynaa. suurtagal ma tahay bilowga dagaalka inay calaamad u yihiin waxaanay oo idil? wasiirka gaashaandhigga Israa'iil hadalka uu dusinayo oo uu ku hanjabayo casri jaahili ayaan ku celinaynaa. hore ayaa madaxweynaha Mareykanka u sheegayay, waxaana dadka khubarada ah oo lafagura arrimaha caalamka ay u dhigeen in nuclear ay ku hanjabayaan. Israa'iil wax kasta oo ay samayso
iiraan ma cabsi gelin karto maraykanka la-aantiina dagaal kuma qaadi karto dagaalkan hadda ay maraykanka gelisay meesha uu maraya cid walba ayaa aragta hanjabaadan la xiriirta in la tirtirayo xadaaradda iiraanna khabiirado dhan waxay isku raaceen inay tahay wax akhlaaqiyaadka khilaafsan dagaal nucleara iiraan in lagu qaado waa laga digay dowladaha waaweyn oo dhan israa'iil iyo maraykanka labadaba waa lagu wargeliyey iiraan maraykanka iyo israa'iil labadaba midna ka baqmayso cid ku qasbi kartana ma jirto heshiis ayna raalli ka ahayn hadda laakiin ifaalaha muuqda kulligood waxa ay tilmaamayaan in laga yaabo inuu dagaalka dib u bilowdo maadaama maraykanku uu aad xaalku ugu xun yahay oo wax allaaliyo wixii madaxweynaha uu sheego ay socon laayihiin khabiirkii haddaytaan soo xigtay cali akbar derani waxa uu yidhi waa khalad weeye in maraykanku ay ka dhaadhacdo in hoggaanka iiraan uu kala qaybsan yahay khabiirkan oo ka tirsan xarunta istiraatiijiyada cilmi baarista teheraan ayaa waxa uu sheegayaa dagaalka maraykanka iyo israa'iil ay ku qaadeen iiraan ayaa xisaab xumo sidiisa horeba ku bilowday iiraan militarigeeda iyo hogaamiyaasheeda siyaasadeed kulligood waa midaysan yihiin intaa waxaa dheer waxa kala qaybsan oo saraakiishoodii ugu muhiimsanaa ee khibradda lahaa kala diraya oo shaqada ka eriyaya waa wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka intaana wuxuu ku darayaa wax aaminaada oo ay iiraan ku qabto ma jiro maamulka waddanka maraykanka bayaanada ka soo baxaya iiraan ee la xiriira marka hormuusna cid diblomaasiyad ku hor istaagi karta ma jirto maraykankana waxaa waajiba in uu fahmo in gobolka bariga dhexe ammaan ahaan sidii loo maareejin jiray ay wax weyn iska bedeleen xaqiiqo cusubna la aas-aasay oo iiraan ay qaadanayso lacagihii ugu horreeyay khidmadda ahaa ee laga qaadi lahaa maraakiibta maraysa baddaasi iiraanna waad ogsoon tahay istiraatiijiyada dhaqaale ee amniga uu leeyahay iyo marinka hormuus qiimaha siyaasadeed uu leeyahay maraykanka in uu lumiyo marinkaas oo dagaalka ka hor lacag la-aan lagu mari jiray lacagna lagu soo rogo maraakiibtiisa iyo maraakiibta israa'iilna loo diiday ciddii taageeraysa xanuun weyn ayay ku haysaa tilaabo military uu qaado oo ku soo ceshan lahaana meesha kama muuqato waxaa muuqata dadka aanan dhibka ku ahayn iiraan in loo ogol yahay inay meesha maraan iiraanna si xoog leh ayay loo wareegtay ayuu leeyahay khabiirkaani dhammaan marinkaasi xaaladda ay abuurtay iiraanna waxay noqon doontaa mid weligeed lagu maareeyo marinka hormuus oo cid lagala tashan doono ma jirto ama maraykan ama cid kale waa gartay waa yahay waan kusoo laaban doonaa haddii wax kusoo kordhaan dhanka iiraan iyo maraykanka xagga lubnaan dagaal toosa ma socdo waxaanu arkaynaa warbixin israa'iil ka soo baxaysa oo sheegaysa 48 askari iyo saraakiila inay dhaawacmeen muddo 48 saacadood 45 askari iyo saraakiil aan iraahdo xisbullahna waxay la soo baxday baa leedahay farsamo cusub wayna ka soo horjeedaa wada hadaladan lagu wada maanta inay ka bilowdaan magaalada Washington ee Mareykanka garhayeenka uu ka yahay ma la oran karaa Israa'iil way sahlatay xisbullah markii xabad joojinta la gaaray wixii ka dambeeyay Israa'iil waxay islahayd sidii xabad joojintii marinka Gaza oo kale howlahaaga iska sii wado laakiin hadda xaalku meesha uu marayo waxa weeye xadgudub kasta ay samayso xisbullah waa ka jawaabayaan tan kale oo la xiriirta wada xaajoodka Mareykanka uu garwadeen ka yahay ururka xisbullah diyaarna uma aha raallina kama aha xukuumadda waddanka Lubnaan ee daciifka ah ayaa laga dhaadhicinayaa in ay qayb ka noqoto wadamada caadiga ee heshiisyada la gelaya Israa'iil madaxweynaha hadda Joseph Aoun waxa uu muuqdaa inuu yahay nin aad u nugul waxayna khabiirada la socda waddanka Lubnaan ay leeyihiin haddii uu ballan soo qaado ama heshiis soo galo way dhib badan tahay sidii ku meel marin lahaa
تنكره ururka xisbullah marnaba ma yeelayaan Israa'iil in heshiis lala galo Israa'iil oo ku jirta gudaha marinka koonfurta Lubnaan ah xisbullah uma muuqato inay u dulqaadanayaan inay sii wado xadgudubka ay ku sameynayso xabajoojintii hore uga dhaxaysay labada dhinac xadgudubyada ay sameysay 7,000 ayaa loo diiwaan geliyay Israa'iil marka wax kasta oo ay sheegtay wax kasta ay sameyso xisbullah kama hoos qaadayso awoodda xisbullah iyo agabka militariga ay haystaan iyo xirfadaha ay isticmaalayaan ma aha kaliya in Israa'iil la yaaban tahay reer galbeedka ayaa la yaaban adkeysigeeda iyo sida ay uga soo kabatay gaadmadii lagu dilay hogaamiyahoodii hore Sheekh Xasan Nasrallah laguna dhaawacay saraakiil fara badan farsamadii loo isticmaalay ee khiyaanada ahayd xagga gacanta ama walkie-talkie-ga ay ciidamada isticmaalaan iyo pagerka hadda waxaad moodaa xisbullah mowqifkooda inuu cad yahay waxaa kaloo ayadana miisaanka luminaysa dowladdii Faransiiska oo galgalka ku ahaan jirtay Lubnaan hadda waxaad moodaa dagaalka qaabka u socdo in ay muujinayso inay dhib badan tahay Israa'iil inay keligeed wax maareyso Mareykankana wada hadallada sababaha uu uga cagajiidayo Iiraan ay uga cagajiidayso waxaa kamid ah waxaa la diiday Lubnaan in lagu daro dhinacyada xabajoojinta sidaas ay tahay Lubnaan hawl culus ayaa ayada dhinkeeda ay ka wadaa dagaalkana sida muuqata mas'uuliyiinta Israa'iilna waa hanjabayaan Mareykankuna waa hanjabayaa waxay tahaba Iiraan iyo Xisbullah iyo Xuutiyiinta iyo kooxaha Ciraaq ka jira uma muuqato ama waxa loo yaqaano shiicada inay kala hari doonaan uma muuqato waxaana muuqata haddii wada hadal la gelayo in ay isku dhinac yihiin qodobadii uu Mareykan gudbiyey shirkii ugu dambeeyay ee labada dhinac dhex maray iyo shirkii ka sii horeeyay waxay ahayd in Iiraan ay faraha kala baxdo ururada ganacsaarka la lahayd waxaana lagu daray khad ahmar ama khad aanan la ogolayn ee gaduudan inuu Mareykanka ka hadlo saaxiibadiisa xataa waxaa loo diiday Mareykanku in uu soo qaado wax ku saabsan saaxiibada istiraatiijiga ee Iiraan leedahay